قف كده انت يدلي وين كساديل نكاجا مدلي ميا ما محل وشي ده يساو حبسي دحديسا ku xanuunsad walaacahay يعني gabadhan niman ay ku wadata yani fiidoyaal ay rabaa inay ka duubtaan dumaashiga Axmed Dilmiya maya dhaydii waa jabsadeen aniga yar kale oo saaxiibana marka waa orod ilaa hadda ruuxaan ma la balantay qolo ma la balantay lama yaqaan waa imaadeen xabadiye iska fureen dagaalkii oo xaska ku jirto qayb ka ahamiya beesoo jooga geesay dhibaataan u dhaweyn isaga lugihiisa ku doontay mana ka fikirin in talaabo si sahlan uu qaado ay soo gabagabayn karto noloshiisa danaana leh u joogtay markii uu raacay saaxiibkii Saacid oo xanaaq meel isgeeyala kadib markii xaaskiisa ay taleefan ugu sheegtay inay soo weerareen gabdha ay isbalansadeen xurgufna ay kala dhaxaysay oo wata ciyaal weero way ku baxeen markii goobta ay tageenna iyagoo aan hubsan waxay rasaas ku fureen dhalinyaro banooni ka timid kuwaas oo warmoog ka ah buuqa jira mid ka mid ah ayayna haleeshay oo u dhintay xabadihii ooda looga qaaday dable xoogga Cumar Cabdulle Geesay oo ka tirsan kumaandooska Gorgor ayaa ku eedeysan dilka marxuum Cabdirasaaq Maxamed Cismaan Caruush oo ahaa arday baranayay injineernimada waxaana falkan oo ka dhacay degmada Hodan 20kii bishii 6 ee sanadkan ku weheliya dable nista Saacid Cabdullaahi Cabdulle kaas oo leh door ah gacansiin ku boorin dambi iyo in bastooladiisa dilka lagu geystay waana sayga xaaska mashaqadan ay ka bilaabatay hubka ayaa la kala badashay ka hor inta aan la iman meesha falka uu ka dhacay waxaana Saacid qoriga uu ka qaatay Geesay bastooladiisa ayuu u dhiibay markii ay yimaadeen guriga buuqa laga soo sheegay ee xaasku ay joogtay ayay xabado ku fureen dhalinyaro banooni ka timid oo roob da'ay ka galay meel wadada geeskeeda ah kuwaas oo war iyo wacaal aan u haynin waxa meesha ka socda iyagoo argagaxsan ayayna u kala firxadeen dhowr jiho marxuumka oo talaab aan qaadin ayay haleeshay xabado ka baxay bastooladii uu watay Geesay dhaawac culus oo halkaasi ka soo gaaray ayuuna u geeriyooday 24kii bishii 6 ee sanadkan iyadoo labada eedeysane ay isaga baxsadeen halka dilka uu ka dhacay 2 maalin kadib waqtigii la dilay marxuumka ayayna suurta gashay in gacanta lagu soo dhigo waa kuwan Geesaygii danaana ahaanta u socday ee geystay dilka iyo Saacidkii loo hiilinayay oo isaguna gacansiin iyo eeda kale loo haysto sida waxay u jiraan horta ma jiraan horta aye aniga habeenkaas ninkan waa soo raacnay marka soo raacnay ninkan hooday xaaskeyga dagaal la siiyay raac ciyaal weeraa soo weerartay gurigeyga soo bixilaaday waa soo raacna meesha markaa imaanay ciyaal badan oo meesha jooga aragna marka iyo gabdho badan oo meesha dagaal ku wada meesha markaa imaanay marka yarka aniga qorigeyga watay anigana marka biskooladiisa watay marka meesha xabadaha ka ridnaan cunugaas ku dhaawacmay taada ma ku dhacay taada xabada ku dhacda ma loogo qoraalka laga qoray teeda ku dhacda dhowsa qoraalka hadda la akhrinay saasa ku qoran ina xabadaada ay ku dhacda ku qoran xabadeedu kuma dhicin adiga maxaa aad danaanada intaas la ku gelsho oo uu soo gurmato xabadaas in la rido oo qorigaaga u dhiibto qor kale biskoolad u qaad ninkan maxaa isku tiin saaxiibana ka dhinta ma taqaan yaa ka dhinta ma aqaani gabdhihii dagaalamay mu tagteen ma aragteen gabdhihii meesha joogeen way kala carareen marka xabadaha aridnay fadhigaaga intee waa adiga buulo burdowa warma kugu dambeysay mishaar ma qaataa mishaar waa qaataa aad ma fasaxa ku joogtaa fasaxa ku joogaa hubka aad adiga ku qoreeda qof u dhiibta soo dad u dilay ninka kale u dhiibta lagu haystaa eedaas ma gashay mise ma gelin dad ka qabtaa dooda ka qaba ay dad sheeg anikaan markaa biskoolada u dhiibay waxa ka waday ma wasala socday asina qoriyo watay aan biskoolada watay markaas ka bacdi waxa dhacday ninka waxaan u sanay xoyda biskooladii dhiib qorigan qabsa amal saab ka bacdi qoriga ka qaatay waa soo wada baxay xaafada soo wada socday xaafada anka soo wada socno xaafadeena agteed oo gabadhi qabo oo uur leh kiligeed guriga ugu tagay naag iyo niman soo wada gabadha kale ee ras dagaalayaan guriga wada buuxaan oo maanta waxa dhacday aniga qoriga watay qorigi 2 baalood taakiridi 2 baalood telefonkooda waa lahayaa ka bacdi ninkaan biskoolada waxa dhacday ciyaal ku soo ordeen ninkan biskoolada waa la qabsaday markii la qabsaday ninkaan biskoolada si isku jiidayeen cunugii xabad ninkaan kor ugu rido isdha xabadii marka intee u dhacday taasay wax jiraan adii ninkan saaxiibatiin miya waa istaqaanin miya waa isnaqaana xaafad ma degatiin hal xaafad hal xaafad qorigiisa uu ku dhiibay miya qoriga Gorgor ninkaan qorigiisa u dhiibay adigana biskooladaada u dhiibtay ilaa ninkaan nin askari waay sababtaas ugu dhiibay marka dagaalka maxaa keenay meesha dagaalka muxuu ahaa dagaalka gabadha qabo iyo gabar kale biya iyo wiilal ee isdagaaleen oo gabadha qabane gabadhi kale way ka dacwootay saldhiga ugu dacwootay kiiska
سي شكت كدعوتي كبعد لو حال علي إنه ويرك سوء هذا عيال توري بانقذ وطن الصوت راعين ساسي قدرت راعي qofka dhimanaya markii kuwa oo dagaalamay ma ku jira asiga ها إلا باش قفتها إلا ديك حافظي سبوا باش dagaalkii oo xaska ku jirto qayb ka ahay miya ها باش وجوا muxuu wataa ku dagaalama asiga dadka tuuriyay baagaday watay ciyaal weer ahaan kala gabdhaha saar soo wateen ma aragteen gabdhii kale oo dagaalamaya way kala ordayda marka xabadayseen miya ya xabadaha markuu riday saaxiibka miya laba xabaa riday ma dhino adiga laba xaba qorigaan ka riday yaa ku riday saaxiibadaas ilaa luuqa markaa saa u soo galaba aragka dhagax ay tuuriyaan ugu bilaabay anna dadkan kala ordaan ahaan laba xaba kor ugu riday ilaa hada abaara labada baalood toos ugu riday laakiin aniga saas aan kor xabad ugu riday laakiin waxaa dhacday marka aniga hada aaraba qorigaas ilaa wax ku dilo qori ilix qasrada ay oo tidhikaan oo ani dhiibe marka biskuuladii aan u dhiibe ninkaana dawladda waxay u sii qori faal iyo afar qasrada ay farta ka saatay qasradii oo baalooto beeka oo wato ala qasradii xabada oo faalka baalooto beeka faal waa miya qorigu faalkii oo gorgor waa beerlaa oo wate qofka dhintay dili ninkaana uu fakata xabada islaantaadii aad had ma joogtaa way joogtaa umleena iska fadhiis saaxiibadii habeenkaasi la joogay marxuumka ee ka wada yimid kubadda ayaa maxdarkan garsoorka ugu sharaxay sida ay wax u dhaceen iyo jawiga siduu ahaa markaasi salaxa ka wada imaanay ani wiilka marxuumka iyo laba kale marka salax markaa ka imaanay meel waxa jirto dhalinyarada iskaga caawiyaan oo isgoos xaafadda dhexdeeda marka masaajida agteena ku yaalo asna wiilka xaafadiisa ka dhaweyd meesha wiilka marxuumka ilaahay naxariis marka anay marka salaxa ka imaanay rooba soo daay roob markuu soo daayay anay waxa kaga xaroonay meel oo guriga agteena roob kaga xaroonay roobkii markuu joogsaday kala tagi rabnay waxa aragnay laba nin oo qoriyo wato iyo dumar daba orday hadal isku ma darsan xabada koowaad markay kor u rideen ani wiil kala orodna marka soo laabanana waxa aragnay wiilkii xabada ku taalo sidii yaa ula orodnay isbitaalka geynay banooniya soo dhasheen miya ha adi maxaa qabataa ani jaamacada dhigta wiilka xabada ku dhacday banooniga idin soo dheeli ha ciyaartooyda kamid ah ay soo dheeshay ciyaartooyda kamid ah marka kala tageysaan yaa yimidaa tiri ma kala tagin kala tagi rabnay markaas uu roobka joogsaday Soomaha marka meesha ka soo baxnay raggaan oo dul taagana aragnay dumarka xabada koowaad waxa saasan inoo jiray ani garsooraan camal inoo jireen xabadii koowaad markii kor loo riday aan soo orodnay kadib laba bush dambaa dhacday marka saas ay u dhaceen soo laabanana wiilkii oo meesha yaal dumarka cararay iyo ragga hore mu taqaanin ma arki jirteen may xaafadda ma degan miya aaga ma degan wallaahi kuma arkin laakiin aniga aaga waa deganahay markay xabadaha maxay ka dhacayaan qori waaweyn mi wataan mise biskooladii wataan wallaahi markii roobka dhammaad aasaan u soo baxnay waxa aragnay mid funaanad cad wato oo yar kala qoriga ka soo siibanayo istaagi iyo wax hadal xataa ma nagu darsan qorigii kor u riday marka anay taleefanaha wadanay sidii u soo kala jeesanay ani wiil kale ma kala aqoonsan kartaa qofka xabadaha siibinaya kuwaas ma kala taqaan dadka ma kala taqaana maya axmed goobta uu faldambiyeedku ka dhacay waad joogtay goobjoogaad ka heed soomaha ma noo sheegi kartaa inta qofood ead ka koobnaydeen ee goobta aad ku joogteen annaga 3 qof oo wiilka dhimanayo uu 4 ku yahay goobtaas aad idinka ku sugnaydeen ee waqtigaas aad joogteen ma jiray wax rabshado ah oo ka dhacay oo aad arkayseen amba aad maqasheen way jireen Soomaha ma jirin waxaad sheegtay in goobtaas ay soo galeen rag iyo dumar isla socdo oo qaarkood hubeysan yihiin oo xabad ridaay xabadaha ay ku ridaayeen meedinka idin ku ridaayeen mise dad kale oo ka baxsan xabadaha ku ridaayeen jira Soomaha dad kale oo meesha lagu riday ma taagnin anaga la taagnin meesha xabadaha way iska ridayeen oo Soomaha wallaahi ayaga la weydiina laakiin anaga inay lagu ridaayeen xabadaha cid lagu ridaay idinka bas ay ahayd Soomaha anaga bisa meesha taagnin cid kale oo xabad lagu ridaay ma jirin Soomaha ha okay waa maasantay xabada ku dhacday marxuumka ka sokow xabada ka horeeyay oo aad maqasheen ma jirto maya xabada koowaad 3 xabada dhacday 3 xabadood waxay ka horeeyeen Soomaha xabadii dishay marxuumka maya mishii kari ani marxuumku waxa ku dhacay
laakiin anaga xabadda koowaad markay dhacday anaga orodnay marka qof ordaynay wixii dhacay ma sheegi karo Soomaa dagaalka dumarka dhex maray ayuu qayb ka ahay sax miyaa midaas may marxuumka ardayo ahay fasax miyuu ku jira waqtigaas fasax ku jira ha su'aal kale ma qabo gudoomiye ayuub meeshan waxaa loo fadhiyaa waxaa dhintay cabdirasaaq maxamed cusmaan la dilay ragga halkan laba qof xiran adiga markii falka u dhacay intee joogtaa أنا والتجنا نك صاحب كي التجنا أو دمنا شيء واحد دعين كأصحاب تاني أهان هبينك أحد سوق جلسة صالح لنا هاي مركز صالح أنا إسكسود إن هبينك سعادة هاد صالح مركز صوب إحنا دانيرتا توس حافظها ملو قلو أنا وكوين بنوني وذنو حافظين مال أكتدا استجني أنا أفرا أنت ناس أنا إسكشيء كيسي إنه سعادة هاد حقاس مال حقاس تروسكينا دينا إنه أدن حاك سوق لي لا ورق يو قبله إسديدا أنا ماشي أنا إسكتاجنين ضد واحد سكوك نما إهان ضد بنوك صباح إهان وإسكتاجنان رجي مركي مترنو جيران حاك ورهلني إن حبضنا الكفري حبضيه الكفري حبدي كود مركا أرجني أنا كو إلى ما مو ديار سنين رجعوا جود بيان أما وحيد مدينة أنا ديار سنين مركا أرجني أنا حبت هاي رج أصحابتي لبا أردي يوني كان صاحب كيا أنا مركي حبدي فرتان كأركي أنا جنب ويسكود أنا جنبي حبدي كود طلبات تصدحات إزدو سعيدين تكود نتا أرجنا وايو أنا دحدي رجعن صاحبتي كأردن لابد كلا إزدو سعيدي حاكور هلا إني نك صاحب كي يالو رجعن الدلين رجي يو وحش ديدا مركي سؤال ضد الويديين ما أنا هن مركي أركان إني الدلين سعادة هدو إسك بحثين أو بحث وبحث نك صاحب كي أنا ما أنا عاون قرقارنا عد في سي ملهن أنتوا ترى بدنا أنتوا وعرّن ماشي كيف كذا أنا مركز سوق كعي أركي رجع إني عرّن خيلي حافظي والصباحي مركز بجاج ضربني ساس كبعدين نك صاحب كي ولا قاضي اسبتالك سمال سوداني سوق جيني أصو ساسا أو نفط درخ فتا أنت أوه أنت سوا أديك محاطة محقبتها أنا اللي رجع عندك تا ما عندي لك تا جاعد أو تجنيكالا أنا تجنيكالا نمك أو حبضه رداي maxay rabaan maxaa sabab ma wada qaanbo anayo hadaan qaal lahayn waa ordi lahayn waxa u sugnay ilaa xabadkooda ka arkeenay ahayd dad wax isku ogna ma ahan dad wax sameeyna ma ahan marka aragna xabadii inay firdhataana waa mid saaxiibkay mid ku dhacday iyo rag kale carreen hubsadeen ragaan baxsadka way ordeen dumar iyo raga isla ordoy ma xabada markii la dooray way soo daba socdeen ragaana ka soo horeey dumarka markii arkeen inay ku dhacday way wada dadeen qaar la bursaa iyo qaar xabad ridaay ma markii iyaga ma isbursanoy ma ba isburseen way isla socdeen markii xabad idin ku ridaan soo qayla lama socoto ma hadlaayaan hadal maqale anay warna man weydiin kalaamna man ku darsan wax xataa anay dad wax sugaay xataa maayeen oo anaga firdha lahayn marka xabadda kooda ku war helnay ya xabadaad isdaba socodkiina mid saaxiib mid ku dhacayso ragaan saaxiibadooda kala la carraan ragaan hubsadeen xabadda in ninkan ku dhacday ayagana way carreen iyo dumarkiina way sii dideen meesha ka imaadeen oo marka idinka hadii aadan dagaal la gelina oo aadan marka horeba buuq ku sameynina idinka ma hor orodeen dad is-eriyana ma dhex orodeen marka ayaga dhinaca ka imaadeen ay ordeen anana ragaan saaxiibadooda dadka orday dhinaca u ordeen oo dhinacaan jiray ana ninkii gambada ahay oo ninka saaxiibkay nin ku dhacday waa markii xabadaha ku dhacdo oo la qaadaysaan dadkii xabadaha riday oo qofkan dilay awen waaba carreen ma istaagin miya qofka ma fiirin say wax u jiraan ma fiirin miya way hubsadeen inay ninka ku dhacday way arkaan qofkiiyo sim hal mar dhaay dhaydii way jabsadeen ragaan ma taqaan ragaan wili ma arag xaafadda ma degna miya aag xaafad ma degno xaafadda aaga degna ma degno meesha wax ka dhacay aad ma degantiin ها أنا ودي dadka degan waa taqaanaa ma indhahood ها ma ku jiraan ragaan wax degan may ma degno xaafadeen ayuu ma degan aageena as ma degno qofka dilo ma aqoonsan kartaa qofka dhac may ani waxa u jeeday rag markii soo socdeen labada ahaayeen
midaa qori watay midii qori boosh watay yarkii kalaa qorigii dafaaya yarkaana intuu ka dafay intaas anaga waxaas weyn inay xabad markii dhacdo ka bacdiya orodka bilaabnabo anaga dad wax isku hawaamaan xabadii markuu furayna isdabataalkii meeshiina mugdi ahayd ninkaan saaxiibkay way qabsatay markuu fakarayo soo qoriga soo qaadanayo qof kamid qof kale qoriga markuu ka qaadanayo soo wax ma sheegayo waxba ka maqan si uu careysan yahay ma waxba sheeganaa ma wallaahi bilaa anay wax ma maqal ani aanteed waxay dhaheen ma maqal raggana mitriinoo jireen adiga maxaa ka ogaad arrintaas intaa ka ogaa aan xaadirka ahaa rag banooni leeyahay salaxa ka nimin salaxaas waqti xilli galeynay xilligaas markaan ka soo baxna salaxii saacadu markii ahayd 5 saac iyo wax la jiraan camal roob aan ugu bilowday roobkii markuu nagu bilowday meel jiingada aan ku onkoranin jiingadaas aan ku onkoranin afarteena anagoo sideena wada joogno si lama filaana gabdho iyo wiilal wada socdo oo anaga meeshana mugdiya xilligaas hadal ayadoo jirin oo la wareysan xabadii markii xogaa distance yarna loo jiro xabadii koobaad hol cida aragno kor ani yar kale oo saaxiibana marka waa orod oo yarka Axmed Leeraa yarkan kalena meeshu fadhiyay orodkaas orodnay marka orodnay hore maan u ordin cabaar bacdi waa soo laabtay soo laabashada soo laabanay ninkan dada meesha ka qaadan soo laabashada soo laabanay ani waxa arkay dhiig meesha yaalo kadib isbitaalkii loo qaaday isbitaalkaas aad Soomaali Suudaanis adu wax ma ka qaadan miya qofta saaxiibka ani ma ka qaadan waa ka soo daa dhalinyarada banooniga dheelisa ku jirta maho dadka xabadaha riday yay eryanayaan u socdaan wallahi anaga war ma keen bas salaxii ka soo bixinay marka ka soo baxnay meesha iska roob nagu daayay anagoo jiingadii hoos fadhino oo iska shaqeysanayno anaga cidna ma soo maagin cidna maana la soo dagaalamin anagoo meesha sideen u joogno sikriis waxaan ugu yimaadeen qadar alle dagaal idinka horeeyay markii taas ma sheegi karo sababtoo anigu wixii ogaale ka sheegi karaa yaa xabadaha idinku rid yaa dila qofka dhintay xabada qofka diyaar ma sheegi karo sababtoo dadkii orday ani yar kala orodnaba orodkaas ordeen qofkii ma ugu jigiisa loo hubsan karo meeshan hadana meel mugdi yahay dhaawacaas saaxiibka uu meesha ku dhaawacmay eed maqashay ma maqashay dhacdo kale oo la xiriirto oo inuu meeshaas oo dagaal ka dhacay ama dad isdagaal ay jireen oo dariska Soomaa waad maqashay Soomaa ma maqlin intaysan xabadu dhicin ka hor wax shanqara amba buuqa amba dad is-eryanay oo aragteen inay jireen iyo in kale waa noo sheegi kartaa Soomaa ma ku sheegi karo sababtoo anaga meesha tagna kaliya xabad dhacday oo kaliya aad maqashay Soomaa aad kadibna aad waa carartay aniga yar kala cararna yarkan kala ugu joogo wax kale oo marag ka tahay ma jiro oo ahayn inaad maqashay xabad dhacday kaliya intaasaad marag ka tahay Soomaa aniga waxa marag ka ahay in anagu meesha iska joogno oo la hadlin wada hadal jirin xabad ay bilaabatay anagana orodna kadibna soo laabana ninkaan wax gaarin laakiin ma kala cadeyn kartid qofka xabada lagu dhuftay iyo qofka ku dhuftay oo aad garan meesha mugdiyahay ma sheegi kari buji xaaska fidnadan ay ka bilaabatay ee u dhaxday eedeysanaha labaad Saacid oo iyaduba loo xiray kiiskan haddana banaanka ku joogtay inay leedahay uur iyo gabar la dhalatay ayaa fadhigan garsoorku waxay ku weydiiyeen su'aalo quseeya galkan sahro maxaa dhacay habeenkaas habeenku waxa dhacay gabar niman inaa soo weerareen haye naagta koowaad waa isdagaalsaneenay mobile ay qaaday saldhigoodana ka dacway mobilkii waa laga soo qaaday naagtaadii waxay dhaahdeen habeenay soo wacd waxay dhaahdeen dagaalka ku soo celinayna camal waa ku baahanahay hay'adda ay baanta habeen waayade galabta camal biri galabtii isku iimaanayna markaas ay dhahday hayay dhahday mobilka way u jirtay hadii mobil kale wiil soo wacd waxay dhaahdeen dagaalka biri dham gaari kariye waxa raba cawad ay dhaahdeen 5 sax weynima dagaal galeena ha maxaa damacsantaade ani kaliya wax ma damacsan kan waa hayaade gurigay ugu ma wada dagaal rabtid haye maxal dhijir wiil ay soo wacay wuxuu yidhi naagta niman inaayo ku wadataa yaal weeree wadataa camal fiido ina laga dubtaaro waa loo dilay camal naagtan ilaa hadda colaadii niidu ku heesa ma aqaa waxa soo dhahayaade anina ninkii waxa dhinaay niman anina waa iska xanuunsana guriga iska joogay naay niman ay soo fukanayaan iima guriga hortiisa taagan yihiin asina uu iimaade markuu iimaade naaya nimanka gurigeena meel la dudumi camal taagnayno uu iimaade mindi waxa saytay xabada kor u riday dadka way kala ordeen wiila taagna meesha wiilka kale wax dil doono xabada way ka fakatay wiilka ku dhacday
wiilka la dil doona ayag mula jiro ma aqaani meeshuu ka meeshuu laakiin taagnaa adiga qofka oo hore isku dacweysay waa taqaanaa miya waa aqaanaa be oo bixita degmada hodan uu ka yaala waa la ka saanaagta ciyaal weero waa marka dagaalka la isku balansaay maxaa waa inta waxa la is balansay ma shiri iyada ay soo wacday waa kula dagaalahay waa ku rabaa kaalme ku leedahay ha waa kura waayda bana guriga waa kura waayda waa ku baahanahay hay hada ibaan guriga ma waad yani markaas ay dhaad guriga nimaan kiriye waxa dhaad hadane bariga waxa dhaad saacadan haween waay ee bariga galabtiyaade hay bariga galabtiyaas balansanay 5 saac markaa 4 saac mal 5 saac markaa la maray aadin lambarka wiilayga soo wacday ee dhahada wiilkana kora iska naqaana lambarka soo waxay dhahday bari dhamay walaalay macaani hadda ku baan gurigiin hadda soo socdaay argada taagan amal ay dhahday ee banaankii soo bax hay anoo saas is diyaarinayo maxaa dhii jira wiil kamid ah ay ku dhex jira soo wacay abaaye he naagta nimanay ku wadata amal ina fiido laga dubtaaro loo dilo ee guriga hadda ba soo bixin adina odagaaga yaa wacay ها adin way soo codnaa ma cabsatay ilaa had waa taaganay banaanka ma cabsanade waa ku soo baxaa markaas ninkii wacdani uu iimaaday dadkana markay ninkii arkeen xabada uu kor way kala ordeenbo adi habeenkii ma aragtay gabartii waa arkay habeenkii ma aragtay habeenkii waa arkay ba gabadhe wiil oo banooni kiimida la dilay wiilka banooni kiimid ay kan horta madambaawi karaay kuma ku jiro meesha ma iska taagnaa ma og laakiin wiilku isaga dadka markay ordeen adima lagu xiray ana waa xirnaay maxaa lagu siiday sabab xabsi dhaxdiisa ku xanuunsan walaa ahay xabsiga laga soo celiyay xabsi ha tawn bir amal ku jiro CID waaga cunug mooda ha ora leeda ha waa huwa qofka dhintiya dil wiilka sadil ninkaaga ma dilin miya may cunuga ka salaaki mu dilin see lagu runsanaa warkaas inuu run yahay ilaahay noo la ogmooho markaad wuxeysay iyo markuu ku imaanay muddo intee lag baa u dhaxeysay muddada u dhaxeysay intee aan ma wax xanuunsanaade yani muddada u dhaxeysay asoo ku yimid ma aragtay ha markay xabadaha ridaayeen waxa la sheegay inuu dumar la socday dumarka la socday ugu jirta adigu ani walaashii bisaas la socon afarteen leeyeen walaasha iyo labadooda isla socday ha xageed u socoteen hada u soconaynahay guriga agtiis gadaashiisa taagneeyeen dadka meesha uu falku ka dhacay iyo gurigaagana waa isla meesha leh wax yariis leh u dhaxeeya okay xabadda maxay u rideen sababta xabadda u ridaayeen maxay ahayd dadkana waxay wateen ma xabadaha din kor u ridee habeenkaas markay adiga iyo labada wiil ay isla socoteen ee gabadha walaasha ah ayada ma is aragteen waqtigaas waa is aragnaba waa is hortaagneedeen ha qof aad wajigiisa garan hal wiil xataa wajigiisa karna kuwii kale ma arkeen laakiin sidii adi dagaal gashaan u dagaal dagaalka ani ma galin walaashii waaye haye yani anu waa la jooga bis shay wax u dhaceen yani anoo yani guri isla joognay waa la soo wacay markii yani gabadha macni meesha isku dagaaleen ma ogeen iyadoo la soo waco yani iscaynayaan arkay yani camal banaanka u soo bax banaanka jooga iyadoo dhees arkay marka wiilaa soo wac wuxuu dhahay yani gabadhan nimanay ku wadataa yani fiidooyaal yar waa inay ka duubtaan marka saas markay dhahday gabadhan ninkeeda wactay ninkeed markuu imaaday waa baxna meesha tagnay oo markaas maxaa la dhahaa meesha way joogeen kadib dumaashigeeya wuxuu tuuray 2 xabadoo tuuray kor kadib midkaan kale Umar la asne hal xabadoo tuuray wiilka ku dhacday kadib meesha wiilku ku dhintay anagana oo meesha ka soo baxnay dadkii aaw oo balansaday aaween meesha joogeen adiga gabdho ma aragtay gabdho kale oo ka soo horjeeda ma aragtay ma ani gadaal soconi ha yani wiila xoolo meesha way buuxaan wiil yani ay wataan ani meesha marka tagnay kan markoo 2 xabad oo tuuray ee kala carareen midkaan kale markoo tuurno wiilkay ku dhacday sahal walaasha waa miyay walaashii waa xabadaha sida loo kala tuuray ma arkaysa adiga ha ya tuuray kood maashigii hore kadib wiilka dambiye wiilka markoo dambiye oo tuuray wiil ku dhacday dumaashiga wax ma dilmiya maya ilaa hadda ruuxaan ma la balantay qolo ma la balantay lama yaqaan waa imaadeen xabadiye iska fureen ilaa ninkan xabadii koowaad uu riday marxuumka ay haleeshay iyaguna ay ahaayeen dad marxalado kala duwan ayuu marxuumku soo maray gudoomi heerar kala duwan uu soo maray oo 4 bari ayuu koomo ku jiray oo wuxuu ku jiray isbitaal Soomaali Suudaniis
oo la dhayay waa kana isagoo caadiya dhinacan bidixda xiga waaye oo dareyskii qaba maadaama uu dhiganayay farsamada engineeringka uu baranayay maanta waxa uu ka rajo qabay ciddiisuna ay ku soo barbaarisay oo loo diyaarinayay inuu noqdo injineer weyn oo wadankiisa dadka waxtarka u leh dhalinyarada waxtarka u leh uu noqdo oo uu guryaha dhiso oo uu bridges ka dhiso oo wax kasta uu dhiso saasa hoyoolkiisa iyo hamiga isaga iyo waalidkiisa sida ay u rabeen intaasay ahayd markaasaa maanta nin oo xaaskaygaan u danaaninaya dhahayay ayaa maanta uu ku maqan yahay mudane gudoomiye garsoore alxamad sharafta leh waxaa xataa hoolka noogu sugan oo maanta nala jooga oo wax kasta ay lahaayeen iyo cashar kasta ay lahaayeen u soo baajiyey saaxiibadiis kolliigga ahaayeen oo engineeringka isla baranayeen oo ay 40 qof gaarayeen maanta waxay dhaheen ka harimayno waa inaan tagnaa meesha saaxiibkeen cadaaladiisa ay ka dhacayso way joogaan waxa kaloo jooga waalidkiisi oo aan qof ka maqnayn ilaa nabadoonkiisi ilaa adeeradiisa ilaa waalidkiisi hooyadii dhashay fadhiso nin xidig soo baxaya oo dhalinyaradaas wada iftiimaya kamid ahaay oo rajo leh mustaqbal leh muxuu naftiisa ku waayay nin dhaaya naagteeda u danaaninay oo qof kale soo wata warqadda isbitaal Madiina oo dhakhtarku ku cadeeyay dhimashadiisa shahaadada dhimashadiisa waaye sidoo kale waa kaas ninkaas faraxsan oo mustaqbalka ifaaya xataa nin ciyaal weero iyo dad hub iyo hadaa waxaan maqlaayay inuu eedeysan u dhaay dadka mindiyaa uu ku jiray wuxuu u gafaayaa ilaa hadda marxuumkaas iyo dadkii waalidkiisa asagoo banooni dheelay waa ka inuu ciyaal salaxahay banooniga laba habeen buu dheeli jiray habeenka axadana habeenkii u dheeli jiray kamid ahayd markay banooniga ka yimaadaan way iska qaraaxaystaan dhalinyarada xaafadda waaye meeshaasay ku baashaalaan ilaa ay 6 saac 7 saac darabaan ku gaarayaan sababtoo beledka magaalada amni waa ilaahay baa ku mahadsan amnigaas ka sokoon ciidamada qaranka oo juhdiga fara badan ku bixiyay in ilaa salax la aado saq dhexe oo laga yimaado oo xaafadaha la iskaga hor sheekaysto iyagoo moobiladoodii waxooda haystaan amniga noocaas oo amnil caamkaas ay ku ciyaarayaan sharafta ciidankeena ku dheelayaan nimanka noocaas oo maanta dilkaas geystay farshaxanka aan ka sameynay oo kaartada farshaxanka goobta laga sameeyay qaabka markaas wax u dhaceen waa kaas labada gabdhood oo sokana waa iyagii ninkaas dhinacaas xigana waa geesay oo dilka geystay baskoolad dilka ku geystay halka waa kaas isagana oo xabado kale oo qoriga ka ridaayay ninka la dhaho saacid isagana iyo marxuumkii oo markaas dhulka yaallo iyo saddexdii kale oo dhalinyaro oo iyagana argagaxa oo sii cararaay dhacdada qaabkeedii laga sameeyay gudoomiye baare warsame oo kiiskan ugu qornaa hoggaanka baarista dembiyada booliska ee CID ayaa sharaxaadda sida falka u dhacay kadib waxa uu maxkamadda la wadaagay natiijada ka soo baxday baaristiisa ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida dhamme maxamuud Saciid Farxad ayaa maxkamadda ka codsaday in labada eedeysane ay ku qaado qodobadii uu ku soo eedeeyay عمر عبد الله جيسي قوبتي الشقة معها يعني وح خسية وحنا خسينين وصن كل شقة لهين أيود دولان وسوء هذا يسوي واجبات كيس أنت أسكوين هاي عيدا كحوق الدولة الصومالية كشرف بدينهن إنه وح نوع عاصي أو رقمان قاب كاسي أو رقمان إذا السنة هالبعض يسوي وحو سمي كبورين دنبي قعنسين هوب كيسي وح الود لي مسؤولية دم منك أي كبل عواتي يسوي maxaa laga rabay xaaskiisa u soo dacwootay gabdhaha isdagaaleen inuu intuu yimaado saldhiga ugu dhow uu report gareeyo haday jiraan xaaskiisa dad isdagaaleen uu dhaho saldhiga hal ii baara arintaas hal ii baalgareeyo habraaca baarista caadiga uu maro sababtoo isaga waa ilaalada shacabka ka tirsan yahay bastooladu ku hubeysan yahay si kasta oo hubeysan tahay si kasta aad darajo u leedahay hadii aad qof muwaadin kale isku dhacdaan ma ahan inaad darajada aad xiran tahay ama shaatiga aad xiran tahay inaad uga aad ku argudato ma adoo darajo leh oo wax walba leh hadii lagu dulmiyo waa inaad sharciga martaa waa inaad hay'adaha baarista martaa waa inaad xaqaaga halka ka raadsataa ma aha inaad sharciga adigu gacmahaaga ku fushato isagu inuu gacmihiisa ku fushto rabaabeynkaas oo wax kasta oo xaaskiisa ay isdagaaleen inuu laayo rabay sababta uu dhahay baskooladu iguma filnay qoriga booshka idib ma istaahilo inuu ka mid noqdo ciidanka ilaalada shacabka qof noocaas u fikiraay sidoo kale waxaan maxkamadda si gaar ah uga codsanayaa eedeysane dable xooga 66604 Cumar Cabdulle Geesay inay ku xukunto dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdirasaaq Maxamed Cismaan sidoo kalena dable Nisa Saacid Cabdullaahi Cabdulle ee isagana ku qaado qodobada aan ku soo eedeynay ee kala ah 320 326 297 iyo 322 oo aysan bun uga dhimin qodobadaas waxa iyadana noo soo hartay xaaska eedeysanaha labaad
oo lagu magacaabo Sahro Macalin Cabdi Macalin Cumar oo iyadana noo eedeysnayd bilowgii baarista ilaa haddana noo eedeysan oo bannaanka ay ku joogto damaanad maadaama aysan xabsiga aysan xamili karin oo ay tahay soo cadaynay inay uur bilow ah ay leedahay oo aysan xabsigaas aysan ka bixi karin maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa maadaama ay weli noo eedeysan tahay maxkamaddu inay go'aan cadaaladeed iyadu ay ka gaarto maxkamaddu noo maasanta qareennada eedeysanayaasha oo ku dooday inuu dhacay dagaal safayn ah ayaa tilmaamay inaan la keenin cadeymo dhammaystiran muwakkiliintooda ayayna u codsadeen in la siiyo xorriyaddooda abukaat salaad maxamed cali waaye mudane guddoomiye waxaan qareen u ahay labada eedeysane maanta maxdarka jooga cumar cabdulle geesey iyo saacid cabdulaahi cabdulle mudane guddoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh waxaan rabaa inaan ku bilaabo cumar oo lagu soo eedeeyey 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed haddaan nahay qareennada difaacayaasha mudane guddoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh kiiskan kama aragno wax aan uga difaacno eedeysanaha koowaad sababtoo ah eedan 434 culeyskeeda caddeynta wuxuu ahay xafiiska xeerraaliyaha guud 434 markhaatiyadii lasoo bandhigay iyo waxyaabihii kale baaraha oo halkan uu ka sheegay guddoomiye kuma istaagi karaan in uu jiro faldembi bareer ah bacdamaa 434 oo xafiiska xeerraaliyaha uu si toosa u cadday karin waxaan usoo jeedinaynaa maxkamadda sharafta leh in ay tahay dhacdadan 444 oo ah safayn dagaal laba dhinaca sababtoo ah 434 kama muuqato dabeecadihii oo ku istaagi lahay 434 sababtoo ah guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh halkan waxaa la keenay markhaatiyaal lagu doonayo 434 oo xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed in lagu caddeeyo laakiin markhaatiyaashaas dhammaantood waxay ahaayeen dadkii ka qayb qaatay faldembigii dhacay 22 bishii 6 sababta aan sidaas u leenahay wax kale maaha sababtoo ah waxaa laga soo tegay caddeyn maxkamadda muhiim u ah taasoo ah CC kaameradii ku xirireed xaafadaas falka uu ka dhacay mudane guddoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh intaa u gudbin 119 oo aan saaxiibaday siinin maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa 118 in ay maxkamaddu si madax bannaan ay u baarto halka caddeyn ee kiiskan muhiimka u ah annaga iyo xafiiska eedan soo oogayba maxkamaddu ay ku kala bixi karto taasoo ah CC kaamirada ku xiran xaafadaas falka oo ka dhacay sababtoo ah waxaa inaba caddeyn mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh markhaatiyaashii halkan la keenay way kala hadleen waxayna u badan yihiin dhammaantood dadkii ka qaybgalayaasha ahaa dagaalka safaynka mudane guddoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh waxaan inaba la soo xirin oo xafiiska xeer ilaaliyaha ay muhiim ahayd inuu inta keeno si aan su'aalo kooban u weydiino dhinacii labaad ee ka qayb qaatayaasha ahaa mudane guddoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh sida caadiga ah ciidamada noocyadooda kala duwan hadday fasax ku jiraan iyo hadday howl ku jiraan labadaba hubkooda waxay la soo aadaan xaafadaha haddii ay jirto dayacaad askari oo sameeyey dayacaaddaas waxaa furo u ah ama asal u ah waaxyaha ayaga ay ka kala tirsan yihiin oo ah waaxyo ay ahayd in askariga hadduu yahay mid shaqaynayo iyo hadduu yahay miduu shaqaynaynin in hadduu yahay askariga mid shaqaynayo sida eedeysanaha labaadoo kale oo ah ilaalada shacabka ah in aanan keliya lagu qalabeynin hub wax dilo ee lagu qalabeeyo ay tahay hub shacabka aan dhibaato u geysanaynin sida budadka iyo stangan waxa loo yaqaano oo ah bastooladaha ay ka dhacaan waxyaabaha elektroniga oo maasada booliska caalamka oo dhanna way isticmaalaan midda kale sarkaalka kale ee ciidanka xoogga dalka asagana hadduu fasax ku jiray waxay ahayd mudane guddoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh waaxda ciidan oo ka tirsan yahay in qorogiisa istoorka lagu xareeyo asagoo shibila bulshada soo dhex galo taasna waxaa waaye dayacaad aan maxkamadda ka tuseyno dhinac kale faldembigan mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh wuxuu leeyahay tiirkii munaasabka u ahay ee ah ku talagalnimo marxuumka cid ku talagashay oo u soo abaabushay in marxuum la yiraahdo marxuum cabdirasaaq in la dilaayo habeenkaas cid ku talagalkeeda soo qorsheeda ma jirin sidaas aawadeed
markhaatiyaasha meeshaan la keenay mar kale aan ku celinaynaa waa participants waxayna ka qayb qaateen safeynka waxyaabaha maxkamadda loogu diidayo in loogu caddeeyana waxaa waaye guddoomiye in laga soo tegey caddeeman oo raad fiican maxkamadda tusi karay annagana na tusi karay oo ah dhinaci labaad ee soo weeraray dhinaca koowaad oo aan la keenin maxkamadda iyo CC cameradoo laga soo tegey baaristana aanan lagu wajahin marka mudane guddoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh waxaan u dhaafayaa 119 saaxiibaday kale aniga oo waqtiga ku dheeraynayn balse 118 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa in ay si madax bannaan ay u baarato caddeyntaas muhiim ku ah maxkamadda mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh markii aan dhageysanay makhraatiyaashii sidoo kalena aan aragnay qodobada lagu soo eedeeyay sidoo kaleetana aan aragnay in wax badan oo ahayd in la caddeeyo aysan weli caddayn annaga ka qareen ahaan waxa noo soo baxay wuxuu yahay in kiiskan uu yahay kiis hal dhinac oo keli ah laakiin uu maqan yahay dhinac kale oo muhiim ah oo la fahmi lahaa cidda dembiga gashay iyo cidda kaleete ee ayadana qaybta ka ah dembiga maxaa yeelay faldembiyeed baa dhacay marka ugu horeysa ma aysan jirin ujeeddo ay ayaga lahaayeen oo ay goobtaas ku tageen isla markaana ay rabeen inay qof ku dilaan wuxuu xafiisku marag ahaan u keenay haddana eedeysan ahaan uu keenay Sahro Cabdi Macalin Cumar oo arrinta la yaab kale waxay tahay in qof eedeysana haddana marag ahaan loo keeno taasina ayna sinaba aysan suuragal u ahayn qareennada iyo maxkamaddaba markii ay wareysteenna waxaa halkaas laga dhex fahmi karay inuu jiray dhinac kale oo ka baxsan dhinaca wax geystay iyo dhinaca markii horeba dhibka ka tabanayay oo saddexaad inuu jiro marka arrinta la yaab kale waxay tahay maxaa loo la'yahay dhinaca saddexaad ama dhinaca kaleete maxaa loo la'yahay gabadhii soo wacday at least gabadhii soo wacday ee handaday iyo gabadhii uu baaraha sheegay ee dhahaysa aniga meeshaas hawlaa u tagay hawshaydii waan soo dhammaystay aawe gabadhaas aawe hadday maanta maxdarka ku sugnaan lahayd wax badan aan ogaan lahayn waxaan ogaan lahayn si danta cadaaladda loo gaaro marxuumka dhintayna xaqiisa uu helo kuwa kaleete ee faldambiyeed geystay ee lagu eedaanay iyaguna cadaaladda u hormaraan waxaa la ogaan lahaa qofka saxda ee ka dambeysay faldambiyeedkan maxaa yeelay annaga waxaa noo soo baxday inuu jiro mubaashir iyo musabib inuu jiro ilaa hadda inaan la haynin musabibkii saxda ahaa ee dhacdadaas inuu wiilkaas dhintay ka dambeeyey inaan la haynin maba dhici lahaynba haddii aysan jiri lahayn dad isdagaalay inay nimankan la soo wacdo ninkaas uu dhintay wax dhici lahaa maba ahaynba sidaas daraaddeed anigoo u gudagalaya 119 waxaan maxkamadda sharafta leh aan ka codsanayaa inay qiimeyso qodobada xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 109aad iyo qodobka 110aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidoo kaleetana inay maxkamaddu dabaqdo qodobka 118 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed si wax badan oo halkan aan lagu soo muujinin oo ahayd in lagu soo muujiyo loo soo muujiyo baaristaasna ee maxkamaddu sameeyso intaasaan codsiga ku soo gabagabeynaa maxkamadda sharafta lana way mahadsantahay dooda socod maxaa ka fahamtay wax badan ka fahmay haye waxa kamid ninkaas oo baarana markuu nuuleysanayo waxyaalo qaar anaga ku hadlin oo ku soo qoray waxyaalaha aan ku hadlin waxay ahayd anaga suuq urwaa anaga la soo qabtay anaga urwaa anaga la soo qabtay inta laga soo qabtay saldhig degmada laga soo xiray CAD-da la soo gudbiyay habeenkii falka dhacay subaxdii 2 saac ama la CAD-da lagu soo wareejiyay dad fakanay ma waayeen baanaga anaga ilaan dad fakanay dad isbuuca la raadinaa ma adiga xaafadda ma degnayno xaafadda dhalinyarada halkan soo istaagayso qofka ma taqaanid ma aqaan kulli ma taqaanid ma xaafadii degayihiin ba xaafadda deganaa waa ka maqlaayay xaafadii hal qof oo weliga arkan ku jira ma xaafadda mar dhow ma degtay 2019 koodi carruur ahayd ma qajirayd waa yaraa markaas dugsiga meesha ku soo bartay waxbarasho meesha ku soo bartay meesha ku soo barbaaray maxkamaddu maxaa ka codsanay in xuriyadeena dib noo siiso maxkamaddu maxaa ka codsanay wixii sharci inaa maraanay fariis gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdiraxmaan gacan warbaahinta qaranka muqdisho